Puntland waxay maraysaa xaalad adag oo dhaqaale taasoo saameyn ku yeelatay dhammaan bulshooyinka reer Puntland sidaa darteed haddii aynu ku guuleysano hoggaanka sare ee dawladda Puntland waxaan xaqiijinaynaa koboc dhaqaale oo degdeg ah waxaan ka faa'iideysanaynaa khayraadkeena dabiiciga ah oo ay ugu horeyso xoolaha nool kalluumaysiga maydiga iyo fooxa milixda iyo khayraadka ka buuxa dhulka hoostiisa haddii aynu ku guuleysano hoggaanka sare ee dalka waxaan xaqiijinaynaa inaan qabanno shir degdeg ah oo lagaga hadlayo dhaqaalaha Puntland taasoo aan doonayna inaanu ku xaqiijino inay Puntland samayso isbeddel dhaqaale oo degdeg ah kaasoo hanan kara niyadda iyo qulubta dhalinta reer Puntland si ay u aaminaan dalkooda uguna nagaadaan sidaa darteed waxaan ka codsanaynaa xildhibaanada sharafta leh inay nagu garab istaagaan codkooda si aynu himiladeena dhaqaale u xaqiijino